dambeysay tolka aan ka dhashay saarkay haddana hurdada ceelashan ugu gaareen abargidir tolka ciila la huryaa tolka aan ka dhashay muqdisho naga soo barakiciseen degdemiskii haddana ceelashan ugu gaadeen dadka waa u barteen maalin walba hurdadayna ugu gaadooyin 2024 waxaan maraynaa in beesha habargidir saa loo barakiciyo tolka aan ka dhashay walaalayaalow annaga galgaduud miska aadnaa dhuusamareeb iyo cadaado iyo dhulkeeni miska aadnaa gurceel miska aadnaa xardheere ma aadnaa habargidir haddii maanta muqdisho ka saarteen waa aamusnay ceelashaa noogu imaadeen hadda haddaan baxno oo aan tagno dhulkeeni muqdisho dhan weydamay lacagtii dhan oo habargidira iskale waxa lagu noolyahay dhan habargidira iskale maalin walba in habargidir hurdada lagu gaado xal maahan habargidir tolka ciila la huryaa tolka aan ka dhashay muqdisho naga soo barakiciseen degdemiskii haddana ceelashay noogu gaadeen dadka waa u barteen maalin walba hurdadayna ugu gaadooyin 2024 waxaan maraynaa in beesha habargidir saa loo barakiciyo tolka aan ka dhashay ciila la oynaa wax kale la oynay malahan maalin walba in tolkeeda saa loo galo xaq maahan go-aan waxaa naga soo dhow haddaa beesha habargidir nahay inaan soomaali iskaga baxno oo dal kale aan samaysano sababtoo ah debdemiskaa naga bixiseen oo hurdadaa nagu gaadeen waa iska aamusnay sababtoo ah dagaal iyo buuq marabno waa iska baxnay ceelashii iyo dadkeenaa dhex degnay haddana saakay hurdadaa nagu gaadeen 10 saac 11 saac aan soo gaadeen fiiri waa yeeladaas hurdaayo maxaa laga rabaa tolka aan ka dhashay 2024 waxaan maraynaa in beelweyntii habargidir ee aan ka dhashay saan loo barakiciyo waa beeshii awoodda badneed oo markay hadasho la baqi jiray maansaana u dambeysay in maalin walba hurdada nagula gaado ismayaasheena saan loo burburiyo caruurteena hoyla-aan ay naqato annagana iska aamusno 2024 aan maraynaa adduunye iyo xaalkeeda waay laakiin maalintii debdemiska ciila la oynaa ciil بسم الله وكفى سلام الله عليكم مدنيال iyo marwooyin habargidir oo lagu soo dheelmaday haddana maantay mar kale ceelasha biyaha oo katrabiler iyo baaldoosare la geliyey daarihii dhaadheera vilooyinkii dabaqyadii jiingadihii bacweynayaashii iyo weliba hee ma arkayse macnihii buushashkii waa la xaaqayaa 91 loo noqonayaa ayagaa ku hanjabay maxamed cabdilaahi farmaajo markii uu joogay laakiin haddee 91 maanta waa la hayaa habargidir dhul ay degan tahay haddii lasoo aado qori caaradiisay dhihi jireen laakiin qorigii waa la waayay ma dheemish buu noqday ma dhacaan baa mise waxaa weeye biyaha ka dhacaya habargidir maanta waxay leeyihiin annagu xasan sheekh maxamuud kama hortegi karno tabar kuma dhamin lama dagaalami karno masaakiin baan nahay laakiin su-aasha isweydiinta le waxaa weeye maxamed cabdilaahi farmaajo markuu joogay oo waxna u ogolaa sharaf iyo karaamana u haayay maxay isagoo si fiican ula macaamilaya sida wanaagsan ay ula macaamili waayeen maantay siinka dheer ilaa iyo xaawo cabdi vilooyinkii iyo dabaqyadii ka dhisnaa waxaa weeye mareexaan baa iskale inta la yidhi ayaa katarbiilar la geliyey xalay tole way soo istaageen iyo shalay waxay yidhaahdeen stateka maryland baana haystaa raxaweyn baana haysataa annagu masaakiin baanu nahay maxaana laga rabaa iyo mareexaan madaxweyne xasan waxaan ma oga madaxweyne soo farageli hadda madaxweyne xasan xalay anaaba u sheegay anaaba ku dhahay xasan shiikow ma arkaysa habargidir saan ay ku leedahay madaxweynaha ma oga ayay ku leeyihiin way ku qiildayayaan ee madaxweyne ma faragelisid horta maantay shaqo ayaa ka socota ummadda soomaaliyeed marka waxaan weydiinaynaa dad masaakiin ah in la barakiciyo oo katrabiilar la geliyo guryahooda dabaqyadooda aroornimo lagu dheelmado su-aal baan ku weydiinayaa ma ku saxan yahay madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya xasan sheekh maxamuud in katrabiil uu geliyo dad masaakiin ah ma ku saxan yahaye masaakiinta maxaa laga rabaa dabaqyadooda
masaakiinta maxaa laga rabaa villooyinkooda masaakiinta maxaa laga rabaa buushashkooda ma ku saxan yahay xasan sheekh maxamuud mise wuu ku qaldan yahay weliba habar gidir oo durbaanka u tuntay oo taageertay farmaajo uga hiilisay inuu sidaas u galo iyagoo meel iska degan ka tarbiil la geliyo ma sax baa mise waa qalad horta su-aashaasi shacabka soomaaliyeed ayaanu warsanaynaa habar gidir waxay leeyihiin anagu maantay baraha bulshada waxa ka dhacaya hawiye oo dhan way u dhamaatay siday leeyihiin waaye hawiye wuu jabay bay ku leeyihiin marka hawiyiina marka aad gudihiisa tagtid waxay ku leeyihiin hawiye wuu nool yahay isagaa dalka xukumaaya laakiin waxa jabay waa habar gidir habar gidirey annaga ma arkaysa hanagu maxaabsanina hawiyi kala saasuu leeyahy ma ogtahay hadda ka hor dadaa waxay yidhahdeen haddaad aragto habar gidir oo hawiye leh macnihi habar gidiraa dan leh hawiyow haddaad maqasho habar gidir baa dan leh muduloodow haddaad maqashidna abgaal baa dan leh soomaalidu horta sidaasay yidhaahdaan marka yacni su-aasha isweydiinta le waxaa weeye hawiye wuu jabay bay dheheen habar gidir maanta hawiye way u dhammaatay macnihi daarood baa guryihii ka jajabinaya iyagoo xukunka haysta xukunka xasan waa maqaarsaar meeshaan daarood baa qabsaday sulub oo ka yimaaday etoobiyay leeyihiin oo abaaskuul u dhashay absamo ah ayaa maanta xamar daaraheeni burburinaya dabdamiskii aad ogeydeen ma arkaysa macnihii tirada badnaa hubkii macnihii tirada badnaa awooddii habar gidir oo laga cabsan jiray soomaaliya geeska gees macnihii aan qabsannay oo macnihii salaan sharafna loo saari jiray saasay leeyihiin marka horta ma arkaysa xalay ayaan idinla wadaagnay in meeshaan ceelasha biyaha habar gidirta degan waxaa weeye katarbiilar la gelin doono isla markaasna siinka dheer ilaa iyo ceelasha biyaha xaawo cabdi la xiray xalaan idinla wadaagnay marka hadda waxay leeyihiin annaga maxaana loogu soo dheelmadaa markaan cibaadaysanayno keliya maxaana loo soo beegsadaa waxay leeyihiin hadda wir xasan sheekh maalin hanoo yimaado haddana awal waxay lahaayeen maba naloo imaan karaba beer dadna lagama qaadi karo guri dadna habeen hadday tahayna waan dagaalamaynaa maalin hadday tahayna waan dagaalamaynaa saasay dhihi jireen laakiin hadda waxay leeyihiin okay waana la gaaday habeenkii in la isgaado sax maahan dagaal rageed ma ahan xasan sheekh waa fulay habeenkii ilmaha iyo maatida gaadaa ciidankii furimaha ku jiraan soo saaraynaa ilaa iyo ma arkaysa shabeelow iyo gaadaay wixii ciidan joogay habar gidir way isu habarwacanaysaa xasan sheekh maxamuud dowladdiisa waa la ridayaa madaxtooyadaan gelaynaa ee car habeen lama rabee maalin hanoo yimaado habeen waxaa weeye masaakiinta jiifjiifta caruurta jiifjiifta xasan inuu liito oo fula yahay dadkay gaadaan xasan iyo dowladdiisu dadkay gaadaan marka hadda maalin hanoo yimaado horta hanjabaadda haddana meeshaasay maraysaa marka horta ma arkaysa macnihi xasan sheekh maxamuud habeenuu galay dadkan xasanow adiguna maalintii maxaad u geli weysa nafsadaada ilaan waxay dhaheen dadkan habeen keliyo xasan dadka gaadaa xasan guuraaye gurgurtaa la dhihi jiray maalin ma imaan kara habar gidir maalin car habar gidir meel ay haysato maalintii ha soo weeraro guri dowladeed car ha yimaado maalin hadda sidaasay leeyihin qaarna waxay leeyihiin habar gidir way jabtay may hawiye wuu jabay waxaa weye tan maad noo dambaysay maanta hawiye hadda waxay leeyihiin raxaweyn baana soo weerartay haddana isla iyagii waay madaxweynaha ma ogee qayb waxay leeyihiin xasan maalin nooma imaan karee habeenuu masaakiinta gaadaa caruuraha in the other way waxay leeyihiin hawiyow waana lagu soo duulay raxaweyn baa nagu soo duushay raxaweyn baa ceelasha nagu haysata raxaweyn baa na qabsanaysa hawiyow ma eelaay baan maanta ma arkaysa addooma u nahay macnihii annagoo ilaa iyo buuraha kaba iska leh oo aan leenahay dhulkaasi maantay ma arkaysa ceelasha biyaha miyaa annaga raxaweyn nagu haysata hawiyow kacaay hubka qaataay eelaay la dagaalamaay raxaweyn la dagaalamaay raxaweyn waa cadow etoobiyaan bay la safan tahay cadowga dalkay soo hogaamisay haddana saasay leeyihin hadda aan kula hadlahay dooda dhacaysa waa sidaas marka teen raacnaa marka mar waxay leeyihiin xasanow habeenkiiyaa dadka gaada car maalintii noo imow car
in the other way waxay leeyihin maya madaxweyne xasan sheekh maxamuud wax shaqaa kuma leh dhaashana wey madaxweynuhu ma oga hoostiisa laga adeeganayaa niman mareexaan ah iyo ma arkaysa macnihii stateka digil iyo mirifle raxaweyn baana soo weeraray warqaday iska soo tuurayaan madaxweynuhu soo farageli ma arkaysa meeshaan macnihii dhulkeenna annagoo masaakiinoo degan raxaweyn baa nagu haysataa kuwana sidaasay leeyihiin waaya waa gabagabaynayna haddii ilaahay uu ka raali noqdo Ethiopia warqadii loo soo saaray ee dambuljadiidna hanjabaad baa ku jirtay sida aad ogsoon tihiin marka waxaan rabaa isla hadalkii xalay inaan ku noqdo xasan sheekh maxamuud waxba kama oga waxaana soo weeraray raxaweyn iyo mareexaan waxaan ka mid ah odayaalka ceelasha oo nabadoonyada aan ku jiray nimanka mareexaan waa yimideen odayaal dhaqameedaan noo yimid odayaal dhaqameedka noo yimid waxay dhaheen annaga haddaa wax lahay haddaa waa ka xaalayna gogolaa ka tiil saakan waxaan aragnay 8 saac xalay waxaan aragnay ciidamada kor joogo hantidi waxay baqaaradii guryo dhul dukumeentiga laamiga saarnaayoon lahayn oo walaalahay leeyihiin xaaji cabdulla macow maxamed xudiin macow ayagoo leeyihiin iidoo la dudumaa oo ciida jimido dudumahan aragnay taliyaalkii waa wacnay oo ceelasha joogay kulli taleefayada waa qabadiideen waxa waaye koonfur galbeedaan haysato xoogay nagu haysataa waxaan ka codsahaa waxaan ka ciidamada xooga madaxweynaha oo xasan sheekh maxamuud inta ummadahoo joogto waxaan dowladda oo islaama waxaan ka codsahaa dhulkaas ceelasha biyaha oo la dhaco haayo oo niman shahaadti ku soo qaraabayo oo lacag baxaayo oo ganacsato imaan hayso madaxweynuhu ma ogo ganacsato hanti wadato oo xoog wadato hanti wadato xoog kuma dhama anaga dad degaan ma hoo deganaan meesha dad masaakiinahan nahay dad meesha deganaan nahay waxa waaye ganacsato xoogay haysataa xoogay ku jirtaa qarashay la baxayaan kuwa isqaraaya kuwa deganaa joogo waxaan ka codsanaa dowladda madaxweynuhu u sareeyo xasan sheekh maxamuud u sareeyo inay naga qabato dadkaas meel naga saarto waxaa la leeyahay waxaa loo tagay madaxa koonfur galbeed loo tagay leeyahay iyadoo wala xal iska soo saara war waxa waaye madaxweynaha xasan sheekh maxamuud ummadan masaakiinta la barakiciyo haayo meel ha yimaado xasan sheekh codkayga haduu maqlaayo ha yimaado waayay maanta koonfur galbeed laga qaylinaya yani koonfur galbeed xoog nagu haystaan ha dhulay naga xoogaysaa يعني كفر قلبه دقلي من فلا بدل حوجاي ولا ليال شيكدو وحده مدحوينها ما اوغيدهن مدحوينه حسن ما اوغو arintana soo dhaxgalo كفر قلبه هيستا مريحان هيستا odayaasha mareexan way yimaadeen waxa weeye anagu xoog ma lihin xoogi 92da loo noqonaya aaw 2 sano ka hor farmaajo lagala hortagay aaway kaasi ilaa iyo shabeellada hoose annaga iskale aaway su'aalahaas haddaba habar gidir waa lagu soo dheelmaday waxa weeye qaar waxay leeyihiin xasan nooma imaan kara habeen way hanjabayaan maalin nooma imaan kara habeenkii nagaadaa qaarna waxay leeyihiin ma arkayse macnihii koonfur galbeed ama digil iyo mirifle ayaana haysta daarood adinba daaroodka hadha daarood adinba daaroodka halkaas ay noo jooga casharkan dardaarankeena waxa weeye camalkana ilaahay dartiisa u qabo maxaa yeelay midkaad u camal falaysaa daraadii eebe uu arkaya sahaydana badso safarka waa uu dheer yahay xamuulkana iska yaree kaabada la fuuli doona mid adag weeyaan naftan la isu dhiibay la isma siina muuqaalka xiga ka hor hadii la kala qaato ballanteena waxa weeye firdowsa